xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hogaamiyay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ayaa si rasmi ah u shaacisay in la qaadan doono dufcadii labaad ee ardayda shaqo qaran sanadka fooda inagu soo haya ee 2020 sidaasina waxa warbaahinta uu sheegay agaasimaha guud ee shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan Muadinka madaxweyne hadii alla yiraahdo markii hore dafcadii hore waxaan isticmaalaynay 3 xero ciidanka qaranku leeyihiin kuleeda saraakiisha iyo kuleeda saraakiil xigeenka labada waan isticmaalaynay tan marka imika labadii kuleedood kale aan isticmaalaynay 600 baa ku jiray 600 imika way naga buuxdaa oo sanad baa lagu jiray kuleedan ama 2 sanadood xiriir bay noqonaysaa tababarada ay bixinayeen waxaan ugu khasabtay inaanu intan in laga dhisno xeradan waxay qaadaa 400 oo kaliya marka waxay lagu kalifaysaa inaanu 2 hool oo kale oo 400 iyaguna qaada dhismahoodii bilowno waxa ku dhamaanaya dhismahaas 2 bilood hadii la yiraahdo marka January processka waan bilaabaynaa hadii la yiraahdo xulistoodii iyo imtixaankoodii iyo hawlahoodii waxay soo gali doonaan insha Allah February intan imika dhismaha guriyaha si soconaya waxa kale iyadana naloo dhisayaa hay'adda International Labour Organization ay bilaabaysaa berri ama saadama ayaamahan hoolkii cuntada oo dhinaca tiyaatarka oo kuraasida iyo miisasku ay yihiin kuwa fiksida oo shuba ku dhagan oo marna lagu siinayo lagjarada oo projector ku xidhan yihiin marna ay ku cuntaynayaan kaana waa naloo dhisayaa iyo labada hoole hurdada oo ku kordhinayno wax naga xuma jiro Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa.